kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aanu maanta ku eegi doono madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan khudbad ka jeediyay xuska munaasabadii 70 guuradii ka soo wareegatay maalintii ugu horeysay oo calan xor ah oo Soomaali ay leedahay laga taagay magaalada Hargeysa kadib gumeystihii Ingiriiska ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada qaranimada Soomaaliya siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ayaana siyaabo kala duwan u hadalaya khudbadii uu 26 bishan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli ay wali wada hadallo u socdaan dawladda Soomaaliya iyo Somaliland haddaba hadalka madaxweynaha maxaa isbedel ah oo uu ku keeni karaa wada hadalladii u socday Somaliland iyo Soomaaliya xubinta dooda gaaban oo aanu arintaasi ku eegi doono waxa igala qayb galaya أحمد بشير محمد oo wakiilka xisbiga ucud ee Kenya iyo siyaasi Maxamed Xuseen Awliyo oo hore u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee dalka Senegal marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban bismillaahir rahmaanir rahiim waxay ahayd hadal khudbad ay aad iyo aad mas'uuliyadu ku dheehan tahay waxay ahayd waa laga sugayay waa laga filayay waana laga helay waajibkii ay galeen buu qiray waxayna aan ka filayaa hadii Ilaahay uu wadalhu idmo sida aan ku aqaano Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amaal nin galay waa arkay nin gudaysan lama arag baa la yiri sidoo uga dhawaajiyayba in uu shalay haday iyagu keeneen 60kii maanta uu waxaan leenahay madaxweynenimadii iyo magaalo madaxdiiba la iskugu daro walaalaha waqooyi galbeed wax kasto oo midnimada lagu keeni karana hal baad goobo waan hubaa waana ka filayaa inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka suura gasho uu soo noqon doona Axmed Bashiir ku soo dhawo dooda gaaban hadalka madaxweynaha maxaa kaaga baxay موقفك ولا قيقات موقفك دون قادنا مدحوينها الجمهورية هذا هرو يرى ونكتنا وعيد إنه أنت أكو إكاده وحد دليش الحلبة جامعة فيصل على وراه وكجواب أيا جرتا هذا الكاسو إنه يري كوحير أيا من مدى الصومالي يعني هرو استكشن أنا هذا الكاسو دليش عنه حقيقة فرماج وحن لنا هودك دي بريها بدك دقة وكجري حقيقة بقول الله دقة وكجري إنه كوح يركض المعنى وقول يرى اللي قد دورتي استجا فكر كذا فكر كذا قول يرى بس اللي قد دورته مدحوين لو قدي مشان بقوله كل نكى صوت دورتين هدي اللي كوح يربا هذا سومالان ما أنت ما بمشى خرط هذا هو بريق ده وإنه حالي أبورجاز كبير هدي كلا تنو نقول وهذا نكى حسن الشيخ سيد وهذا جري عاطفة بس سومالان هيسا أفكارتي حسن الشيخ بوسو جوري وعن عقليات متأ ayaa xamar ka talisaan anigu aaminsanahay Awliyo walaalkay Axmed waxaan leeyahay waxa tahay nin dhalinyaro oo muwaadina oo siyaasadda ku cusub marka waxa la rabaa markii aad siyaasadda ku cusub tahay Axmed Bashiir oo inaad wax badan xiriso waxa la yiri hal maqaar diidan oo meelo dulduleelay ka dayda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u hambaliyay oo uu u bogaadiyay awowayaasha iyo adeerayaasha iyo abkooyaasha raggii waqooyi galbeed ee koonfurta oo bislayn ilaa waxa la baa runta in la qire raggii keenay ee maalintii Allah u naxariistay Maxamed Ibrahim Cigaaliyo intay ay diideen qoladii koonfurta ay inta shacabka Soomaaliyeed dhagax tuureen labada qof oo uga dhimatay ayuu maantay amaalkiisii guday anigu waan ku raacsanahay meel halka laga qiro male wuxuu soo qaatay suugaantii xataa qadra daahir oo waqooyi galbeed ka soo jeeda wuxuu soo qaatay Cabdullaahi Ciise Tibacade wuxuu soo qaatay amaal nin galayna waa la arkaa baa nin gudaysa lama arko waxaad u jeedin Soomaali intay kala maqnayd cidna subagmeeda kama dhamin waxaan leeyahay asaga amaal ha dhigto waxaan hubaa walaalaha waqooyi galbeed erayadii uu yiri madaxweynaha maanta Soomaaliya madaxa ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay soo dhaweynayaan anigu mar walba waxaan aaminsanahay koonfurtu lama raba hadal macaan waxa ka fiican ficil macaan waa in loo tago waa in calanka loo geeyo waa in madaxweynenimada loo geeyo waa in magaalo madaxdeena loo geeyo waqooyi galbeed waya Axmed madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrimo ku saabsan midnimada ummadda Soomaaliyeed maxaa hadalkaasi ku jaban walaal horta waxaan filayaa intii badneed ba Awliyo siisay aniga hadda qirsanahay shaqaalaha danta guud ee Soomaaliya wareey horta calankan 26 June Hargeysa qaaday xamarna kooda luuliye qaaday shan Soomaaliyeed baa xidigta cad noogu taalo NFD iyo Djibouti oo day shalay baa la ictiraafay Djibouti maanta la ictiraafay oo Ethiopia Djibouti Maxamed Siyaad Barre NFD Ismaaciil Umar Geli Mingista ku heshiiyay dawlad ma ahayn oo 3 safiir xataa ma ilahayn oo Soomaaliya interest-kiisa Soomaaliya laga leeyahay darteeda safiirada loo geysan waayay
maanta dowlad Soomaaliyeed burburtay ee caalamkii tageen marka anigu awlii laftirkiisa meel u degdegay garan maayo iyo cid wax ku og yahay isagaaba tiisi daryeela walaalkay weeyaan ana xaqiiqdan dul taagana walaalkay u leeyahay waxa weeyaan annaga is dooranay annagaana madaxdii haysana 26kan inaga iska leh xamarkoodii luuliye leedahay hadii la Soomaalnimo la raadinayo annaga caawa jecele Djibouti calanka horta loo geeyo calankii waa shantii Soomaaliyeed xidigti weeyaan xamar calanka ha qaado way idoo wax diidan nin idii doonaysa Djibouti aan la hadli karin dhowey waxay ku mahmaan koonfurta Soomaaliya shilinta waxay yiraahdeen golanka waxay yiraahdaan shilinta golanka ay jeceshahay meesha u daciifsan marka walaalka kan abo kan yar iga celi kan aan iska celinay kii lama hadli karo Ethiopia lama hadli karo Djibouti lama hadli karo ee Soomaaliland walaalana xalida xamar laga feesteenay Djibouti calan kale loo feesteenay calankan xigta leh constitution aan qaramada midoobay waxa yaalo shan Soomaali awliyo waxaan la soconaa inay sii socdeen wada hadallo u dhaxeeya Soomaaliya iyo dawladda dhexe maxaa saameyn ah oo hadalkaasi madaxweynaha uu jeediyay uu ku keeni karaa wada hadalladii si fiican waa soo dhaweeyeen labada dhinac xataa June markii raggii aan fiirsado Somaliland waxay sheegeen oo soo dhaweeyeen wada hadalka in la wadayo maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar walba geed koreegeed hoosaba geed gaabanba wuu u geli doonaa waana hubay Ilaahay amarkii mooyee in guul laga gaarayo waxaan san rabaa inaan mid walaalkay Axmed aan u sheego horta koow waxa weeye waxa ayaan daraa calankaada adigu keentay oo ii keentay inaan ugu qaatay adiguna aad diidan tahay waxa kale oo ayaan daraa in maaragtay kuwa raba inay Soomaalida kala fogeeyaan diyaaradii 18 May in astaan looga dhigay diyaaradii calanka Soomaaliyeed ee wiilashii loo diray markii la yiri soo duqeeyay Hargeysa ay Djibouti ka dajiyeen dalalka sheeye diyaaradii Ingiriiska oo ugu horeysay Afrika iyo Carab lagu duqeeyana aan horta la saarin oo calanka Ingiriiska lagu dhigin aad baan aan uga xumahay waxaan leeyahay Soomaalidu ha korto ha kobcdo ha weynaato fikirkooduna ha israaco waxaan leeyahay isma horta ay saleyn baan leeyahay Soomaaliya waa mid bayna ku dambeynaysaa Djibouti inta ay tartay Soomaali lama arkeen hadaysan maanta xornimo oo aysan ahaan lahayn waxana hubaa maalintii la qaatay hadaan Maxamed Xarbi iyo ragii lahaa aysan dhiban lahayn waxa weeye oo aan Faransiisku diyaaradda ku asinaarad gareeyla Axmed ay oo aniga teed waxa u soo noqonaya hadalkan qof badaba ka cashinina magacan Soomaali aan wadaagna xaqiiqatan kala go'ma waan bedelaynaa Red Sea baan doon la bixina badacas waxaan la soo kabkabayo iyo walaalaanahay iyo kaalidan iyo waxaan xaqiiqan ku sheegayaa haddii xisbiga uu ku guuleysto Soomaaliland magaca waa laga bedelay Red Sea baan u bixinayna waxa ku soo haray kaadi walaalkaygiyo waxa ku soo haray weeyaan wada hadaladana batatan waa la joojinayaa xisbiga kulmiye ayaa maanta ku fashilmay golihii baarlamaanka Soomaaliland ku fashilmay way fureen maxay noo keeneen oo ahayn Sheekh Shariif intii yarada wanaagsanayd oo Sheekh Shariif kala qaaday maanta wada hadalada Soomaaliland waxa u sheegaynaa shacbiga inay u diyaar garoowaan sidii wada hadalada lagu joojin lahaa waxaan soo gaarnay gabagabada dooda awliyo maxaa ku soo gabagabeynaysaa waxaan leeyahay tun sagaara wax la kala qalan male waxaan leeyahay shay farada iyo sunna lagu beerdareynin hadii shalay aad tagteen walaalaha runta in laga dheeraado maaha haday noqotay madmadow wax la qirayaa sidii ay mudnaayeen inaan loo gelin walaalaha waqooyi galbeed markay yimaadeen laakiin waxaan hubaa qof kasta oo Soomaaliya inuu walaaltinimada u qirayo 27 sano ayaguna waa sii ordayeen annaguna waa ku daba dhaganeen waana hubaa ha fogaato ama ha dhawaatee Soomaaliya inay israacayso shanta waliba anigu kama hadlayo waqooyi galbeed kaliya shanta inay israacaysaan aaminsanay sababtay dhibkii waa la wada arkay waxaan qaxooti iyo dhac iyo dhibaato iyo waxa weeye integration iyo kala baabi'in Soomaali wax la yiraahdo la baabi'inaya annagu marka intaan isku maqanahay waa lagu maqan yahay maskaxda shaqaysan dhila gabagabadii Axmed maxaa ku soo gabagabeynaysaa anigu waxaan ku soo gabagabeynaa shantii Soomaaliyeed waan taageersanahay laakiin wax ka sokeeyo oo yaacyood ah ma taageersantii Soomaaliyeed hadii isku imaanayso waxay isugu imaanayaan academically sharciyad qoraal isugu imaanaysa laabla kiciis farmaajo lagu doortay laabla kiciis waxba hadda ka jirin laabla kacaas dambe uma socon weyno aqliyad intaan ka balaaran odayaal Soomaaliyeed iyo kala go iyo kala sujoog waxay u dhaxaysaa aqliyad intaan ka balaaran laakiin in qol yar lagu hadlo oo la yiraahdo Soomaali midniman ugu baaqaya you carry yaa ku xilsaartay farmaajo yaa ku xilsaartay dadka adiga ku xilsaartay shaqadooda horta ka soo bax hadii Soomaali guud laga hadlayo annaga waxa weeyaan shantii Ethiopian u yeerayna waqooyi galbeed waxaan u yeeraynaa NFD Djibouti taasan sameeyna hal lacag oo European Union ah laakiin shan xaafadood oo Puntland iyo Jubaland oo asagana waxba ku lahayn ninkan walaalkay awliyo
oo hal goof ku lahayn hal goof anaa walaalkay ah anaa u dagaalamayo anaa xaqiisii u dhicinayo markee waa dhiban yahee walaalkay arrinkiisa waxa waaye de waa idheh iyo hadal waxa weeye hadalkii awliyo waxaan ka soo qaadayaa walaalkayga lunsan oo dee rabo inuu xagga jeebka lagala hadlo 60kii haddaad tagto British Library-ga qadarow aniga adeerkay haddii qabiil laga hadlaayo markii talyaaniga iyo ingiriiska markii dhaheen xaggee kuu seerayna adeerkay asagoo tayqimi wuxuu yidhi adaa gumaystaa waddanka xaaraan bay iga tahay barkee waxa weeye aabbahay wiilku wuxuu aabbihii ku arku isticmaala adiga wixii aabbaha sameeyey axmedow samee midnimada soomaaliya ka shaqee guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaabnayd tan iyo kulan dambe nabadgelyo